السلام عليكم walaalkiin Mubarak Maxamuud Saleebaan iyo channelkeeni Toyotone Media fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambe aanu soo gelin doono annagana ay dhiirigelin noogu noqoto waxaynu halkii ka sii ambaqaadaynaa taariikhdii taxanaha inoo ahayd ee dowladdii Cabbaasiyiinta qaybtana waa qaybtii 6 maanta waxaynu ka sii qaadaynaa waqtigii uu xukunka hayay Muuse al-Haadi oo ahaa khaliifkii afraad هادي أو مجلس أبو حوها موسى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وحوها عرضكي محمد المهدي وأنا خليفك أفراد دولتي عباسيين الهادي وحو كل شيء مقالة الري سنتكي بغلي أفرتنكي هجريكا كونا بيغان تضرب بغلي لحدنكي ميلاديكا وحول وريغي خليفة كدب لمشدها به أبو عبد الله محمد المهدي 14 bishii September ee sanadkii 786 miilaadiga kuna beegan sanadkii 169 ee hijriga isagoo jooga Georgian oo dagaal kula jira reer Tabristan aabihiisna sidii aan soo sheegnayba wuxuu ku geeriyooday degmada Mandali ee ka tirsan Ciraaq waxana aasay Harun al-Rashid oo isaga odaygu la doonayay inuu talada ku wareejiyo markii uu arkay inuu yahay hogaamiye karti badan oo dawladda meel gaarsiin kara haddaba markii Mahdi geeriyooday Harun al-Rashid wuxuu dalbaday in loogu yeedho Yaxya bin Khalid oo talagalaha isagoo weydiiyay sidii uu ku talin lahaa Yaxya wuxuu yiri si aan rabshado u dhicin waxaan ku talinayaa in meydka halkan lagu aaso haddii Baghdad la geeyo wax laga yaabaa in askartu kacdee dabadeedna ninkii la odhan jiray Naziir ayaa wax loo sii dhiibay faraatigii xilka iyo ushii dheerayd ee laga dhaxlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo astaan u ahayd hadba qofka xilka haya si loo gaadhsiiyo Muuse Haadi uuna ula wareego xilka askartana u sheeg in la guurayo oo ay diyaar garoobaan dabadeed ciidankii markii ay ogaadeen in boqorkii dhintay rabshado ayay sameeyeen oo xarabtii Baghdad ayay weerar ku soo qaadeen oo albaabkii Rabiic oo kusimaha Baghdad ahaa ayay gubeen dabadeed wada xaajood baa la galay waxna la siiyay 2 sano mushaharkood markaasay degeen oo xasileen dhinaca kale Rabiic wuxuu gaarsiiyay tacsidii amiirka mu'miniinta gobolada dawladda oo dhan isagoo madaxdii gobolada oo dhan amar ku siiyay inay axdiga doorashada u qaadaan Muuse Haadi iyo Harun al-Rashid oo dhaxal suge ah sidaas bayna hawlihii u kala fuleen dhinaca kale Muuse Haadi markii tacsidii gaadhay iyo in xilkii lagu reebay ayuu Georgian ka soo hayaamay 10kii bishii Safar isagoo Baghdad soo socday muddo 20 casho wuxuuna soo gaadhay magaalada Baghdad waxaan halkaa ku soo dhaweeyay dad badan oo qoyskiisa ka mid ah iyo madaxdii dawladda ee xarunta joogtay kadibna Haadi ayaa ninkii la odhan jiray Rabiic wuxuu ka dhigtay ra'iisul wasaarihiisa isagoo xil saaray hogaaminta dawladda waxana hoos yimanayay wasaaradaha oo dhan maxaa yeelay wuxuu ahaa nin karti badan oo daacad ah wuxuuna soo dhisay golihiisii wasiirada kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa Maxamed bin Jamiil wuxuu u magacaabay wasiirka maaliyadda Ciraaq oo dhan Ubaydullah bin Siyaadna wuxuu u magacaabay wasiirka maaliyadda Shaam Ali bin Ciisa bin Mahanna wuxuu u magacaabay taliyaha ilaalada boqorka iyo wasiirka gaashaandhiga taliyaha booliskana wuxuu u magacaabay Abdullahi bin Malik xoghaynta wuxuu u taayay ninkii awal hayay oo ahaa Ali bin Yaqtiin sidoo kale wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta iyo wasaaradihii kale ee markaa jiray iyaga gadaal buu ka soo dhisay oo raggii hore ee sii hayay buu u sii taayay oo sii waday hawsha Haadi markii uu talada la wareegayba wuxuu olole weyn ku qaaday nimankii diinta islaamka qaloocinayay waxayna ahaayeen niman diinta islaamka ciyaar ka dhigtay oo wax kasta oo xaarana banaystay oo xataa dameerkii aadanuhu ka dhintay oo xoolaha ka sii liita Mahdi waagiisii wuxuu diyaariyay culimo dooda diinta islaamka aad ugu sarreysa oo kuwa falsafadaha ku soo gabada la dooda oo dhufays kasta ka soo saarta oo waxaa la yiraahdaa wuxuu ahaa ninkii u horeeyay ee bilaabay culimo kalaamka oo ah in dood afka iyo garaadka ah looga adkaado nimanka diinta qaloocinaya oo afkaaro ay soo qurxiyeen la soo golo tegaya oo markii la xujeeyo oo laga garhero markaas haddii ay garaabaan oo toobad keenaan waa la sii dayn jiray haddii kalena markaas la dili jiray dhinaca kacdoonkii Xuseen bin Cali
ugaas waxaa kacdoon sameeyey oo dowladda ka hor yimid nin firkii cali binu abidaalib ah oo la odhan jiray xuseen binu cali binu xasan binu cali binu abidaalib maxamed iyo ibraahimkii kacdoonkii u dambeeyey sameeyey waagii abujacfar ayay ilbaadeer yihiin wuxuu soo baxay markii mahdi geeriyooday haadina uu xilka la wareegay sababta kicisayna waxaa lagu sheegay in mas-uuliyaddeeda uu lahaa guddoomiye cusub oo haadii soo magacaabay oo la odhan jiray cumar binu cabdulcasiis guddoomiyihii cusba ayaa cadaadis ku bilaabay reer madiina siiba firkii cali binu abidaalib allaha ka raalli noqdee ugu dambayna dagaal ka dhacay magaalada maka ayaa lagu dilay xuseen binu cali kacdoonkiina halkaas ayaa lagu soo afjaray firkiisiina wixii raacay badankooda waa la dilay waxaa fakaday idris binu cabdulaahi binu xasan binu cali wuxuuna u baxsaday magaalada tanja oo Marooko ku taalla markii uu halkaas tegayna waxaa ku soo dhoweeyey dadkii dhulkaas deganaa oo dhan gaar ahaana barbaariyiintii oo furkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yahay bay u soo dhoweynayeen darteed idriiskaasi wuxuu la dhashay oo ka yaraa maxamed iyo ibraahimkii kacdoonka ku sameeyey abujacfar almansuur wakhtigiisii isagana markii dambe cabaasiyiintu waxay ka soo daba direen nin iska dhigay dhakhtar wax daweeya markaasuu idriis u tegey oo isaga dhigay nin xerta taageersan ka mid ah dabadeed markii uu muddo la joogay ayuu sumeeyey idriisna halkaas ayuu ku dhintay laakiin wuxuu ka tegey wiil uu dhalay oo idriis isagana la yidhaahdo oo dhulkaas ku xoogsaday waxaana la sheegaa in boqortooyo dhulkaas ka jiri jirtay inay ku abtirsato dhinaca kale dowlad taageersan iyo dariiqo diineed oo firkiisii ku abtirsata baana dhulka galbeedka carabta oo ah deegaanka barbaariyiinta ka hana qaaday oo saameyn weyn buu halkaas ku yeeshay idriiskaas nin firkiisa ah baana aasaasay dariiqada la yidhaahdo idriisiya loo yaqaano oo ku faaftay dhulka masar suudaan xijaas yaman soomaaliya etoobiya induneesiya iyo meelo kale waxaana dariiqada idriisiyada ka sii farcamay dariiqooyin ay ka mid yihiin sanuusiya tiijaaniya saalixiya raashidiya raxmaaniya muxamadiya iyo kuwo kale dariiqadaasina waxay ka mid tahay dariiqooyinka baabulsuufiga ama suufinimada dariiqadaasi soomaaliya gobollada koonfureed bay xoog ku leedahay siiba galgaduud iyo labada shabeelle raashidiya iyo axmediya baana loo yaqaanaa sidoo kale saalixiyadii sayid maxamed soo qaatayna idriisiya ayay hoos timaadaa muuse haadi isaga iyo haaruun arrashiid waxaa dhashay hooyo asal ahaan ka soo jeeda carabta yaman waxaana magaceeda la odhan jiray khaysaraan habartu waxay ahayd afmiishaarad siyaasiyad ah oo dowladda gacanta kula jirtay oo intii seegeedu noolaa howlo badan bay qaban jirtay oo ninkeeda dad badan bay kala hadli jirtay oo gurigeedu wuxuu weligii ahaa guri siyaasadeed markii wiilkeedu qabsadayna gurigeedii wuxuu isu rogay qasrigii qaranka laga hagi jiray oo waxaa la arkayey boqolaal saraakiil iyo madax iyo duqaydan oo kale dowladda oo isu dabamaraya oo dhammaantoodna doonaya inay kala hadasho wiilkeeda haadi haddaba haadii markii uu arkay inay hooyadiis waxaan loo dirsan gacanta kula jirto wuu waaniyey oo wuxuu ku yidhi hooyay qof weyn oo dumara baa tahaye siyaasadda dowladda ka dhex bax oo wardigaaga iyo kitaabka akhrintiisa iyo cibaadada ku ekow wixii aad u baahatan aniga weydiiso laakiin taas way ka diiday markaasuu dadkii la hadlay oo wuxuu ku yidhi ninkii aan guriga hooyaday hortiisa ku arko ballan waxaan ku qaadayaa inaan jeeda la dhici doono dhammaan hantidiisana aan la wareegi doono isagana aan xabsiga dhigi doono markaasaa laga maagtay oo gurigeedii laga cararay markaasay hooyadiis u cadhootay waxayna diiday inay salaanta xitaa ka qaado laakiin wax kasta ay u baahato gurigeeda ayuu ugu diyaariyey dadkiina way ka wada carareen markii ay hanjabaadda boqorka maqleen dhinaca kale haadi oo haaruun xilkii ka xayoobiyey muuse haadi wuxuu sameeyey tallaabo kale oo axdi jebin ah oo axdigii aabbihii ummadda oo dhan ka qaaday oo ahaa inuu isagu dhaxal sugaha koowaad yahay haaruunna uu dhaxal sugaha labaad yahay ayuu ka xayoobayey dhammaan madaxdii dowladda iyo saraakiishii ciidanka wuxuu amar ku siiyey inay ka baxaan axdigii ay haaruun qaadeen ee ahaa inuu dhaxal suge u noqdo muuse haadi oo isaga ah wuxuuna rabay inuu wiilkiisa jacfar ku beddelo oo isagu dhaxal suge u noqdo wiilkiisuna wuxuu ahaa nin yar oo aan qaangaadhin inkastoo dadka badankiisu aanay arrintan raalli ka ahayn
haddana ma jirin qof markaas ku dhiiran kara inuu ka hor yimaado ilaan waa xukun boqortooye waana la qaatay laakiin waxaa ka maagay ninkii la odhan jiray yaxyaa binu khaalid kadibna markii uu arkay inuu yaxyaa aanu diyaar u ahayn inuu fuliyo amarkii ka soo fulay ee haaruun lagaga xayoobiyey xilkii dhaxal sugaha ayuu amar ku bixiyey in la xidho yaxyaa intaas waxaa dheeraa dadkii iyo ciidankii wuxuu amar ku siiyey in la joojiyo dhammaan maamuuskii loo samayn jiray haaruun al-rashiid dhinaca kale yaxyaa binu khaalid ayaa wuxuu ka codsaday amiirkii mu'miniinta ee alhaadi inuu si goonni ah ula shooro oo ula hadlo markaasuu ka oggolaaday wuxuuna ku yidhi amiirkii mu'miniintow waan kula talinayaa ee tallaabadan aad qaaday ka laabo oo walaalkaa ha goyn oo axdigii aabbaha ha jebin oo qoyskiinna khilaafa soo gelin sidoo kale waxaan kuu sheegayaa wiilkaaga yarka ah inaan ciidina ka yeelaynin inuu hogaamiye noqdo oo dadku salaadooda xajkooda jihaadkooda ku aamini maayaan haddii aad wiilkaaga guula doonaysid haaruun inuu ku xigeen u noqdo oo xilka uga dambeeya soo jeedi sidaas ayaa macquulaha waxaana rajaynayaa haaruun inuu ilmahaaga sida kuwiisa u dhaqaalaynayo taladaas ayuu haadi u bogay markaasuu bilaabay inuu dib uga fekero tallaabadii uu qaaday oo walaalkiis ku takooray hooyadiisna haaruun bay jeclayd oo ay la safnayd oo sida uu ula dhaqmay aad bay uga cadhootay waxna la sheegaa inay habaartay muusena wax badan ma sii waraaqin ugu dambayna muuse haadi wuu ka laabtay arrinkii casilaadda ee haaruun sidaas buuna khilaafkii ku hadhay oo ay ku heshiiyeen walaalihii coloobay muddo yar kadibna haadi wuu u xanuunsaday wuuna geeriyooday muuse haadi wuxuu geeriyooday habeen jimca oo bisha rabiicul awal ay 15 tahay sannadkii 170aad xilkana wuxuu hayay sannad iyo 3 bilood oo keliya werin kalena waxay sheegaysaa inuu hayay sannad iyo bil wuxuuna geeriyooday isagoo 22 jir ah maantana halkaa inoogu joogto dhinaca xigashada taariikhda waxaanu ka soo xiganaa buugga taariikhdii cabbaasiyiinta ee idinka muuqda shaashadda insha Allah qaybta dambe waxaanu ka sii qaadi doonaa taariikhdii haaruun al-rashiid oo ahaa waqtigii dahabiga ahaa ee dowladdii cabbaasiyiinta maantana halkaa inoogu joogto. Wassalaamu calaykum.